qodobada laga bedelayo dastuurka Puntland oo la shaaciyay ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan ka codsanayaa inaad soo follow garayso sidoo kaleetana muuqaalkan aad like garayso kaba sii wanaagsan haddii aad u share garay saaxiib adigoo kale waad ku maasan tahay la socodkaada. baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa si rasmi ah u shaaciyay qodobada wax ka bedelka lagu sameynayo ee dastuurka maamulkaasi. qorshaha wax ka bedelka iyo meelmarinta baarlamaanka ee ah in la furo dastuurka ayaa dhawaan waxa ka dhashay isku dhacyo hubeysan oo ka dhacay magaalada Garowe gaar ahaan agagaarka xarunta aqalka wakiilada. fariin lagu baahiyay bogga rasmiga ee baarlamaanka Puntland ee Facebook ayaa waxa lagu shaaciyay in wax laga bedelayo qodobka 46 ee dastuurka Puntland, qodobka 56, qodobka 64, qodobka 7 iyo qodobada 112 muwaadin golaha wakiilada dowladda Puntland isaga oo ka duulayo qodobka 139 farqadiisa 3 ee dastuurka dowladda Puntland waxa uu dadweynaha dal iyo dibadba ku wargelinayaa in wax ka bedel lagu sameynayo dastuurka dowladda Puntland ayaa lagu yiri fariinta uu baahiyay baarlamaanka Puntland. qodobka 46 oo kamid ah qodobada dastuurka ee wax ka bedelka lagu sameynayo ayaa waxa uu ku saabsan yahay xisbiyada siyaasadeed wuxuuna baarlamaanka shaaciyay in wax ka bedelka lagu sameynayo qodobkaas la waafajin doono qodobka kale ee doorashooyinka. golaha wakiilada Puntland ayaa sidoo kale waxa uu ku tilmaamay wax ka bedelka lagu sameynayo qodobka xisbiyada siyaasadeed si fursad loo siiyo ka qaybgalka siyaasadda ee muwaadiniinta. talaabadan ayaa ugu sii daraysa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan maamulka Puntland iyadoo dhawaan isimada gobolka Nugaal ay dalbadeen in la hakiyo talaabooyinka wax ka bedelka dastuurka Puntland ilaa inta ay ka digayso xiisadda siyaasadeed ee dhawaan isku rogtay gacanka hadalka. guddoonka golaha wakiilada Puntland ayaa gadaal ka riixaya qorshaha wax ka bedelka loogu sameynayo oo sida la fahamsan yahay gacan saar la leh madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. dhawaan ayay ahayd markii golaha uu ansixiyay wax ka bedelka dastuurka Puntland kadib markii ay ogol ugu codeeyeen 34 mudane oo kamid ah 35 mudane oo soo xaadirtay kulankaasi. si kastaba Puntland ayaa haatan wajahaysa xaalad adag oo hubanti la'aan ah maadaama gacanka hadal uu ka dhashay furista dastuurka maamulkaasi kaasi oo ay meel adag iska taageen siyaasiyiinta mucaaradka.